السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلهي مهدي دا سوصول لابني مالين كالي إذنكم نبدا يعني قول نبدا وإلهي مهديس أصحابي ما أنت waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin soo laalaabanaysa beryahan oo maxay ay baraha bulshada si fiican hadalhayn badan ay ka jirtay baa waxaan rabaa inaan wixii fikirkayga ah ka soo jeediyo ama aan ka iraado wixii aniga aan kulley shakhsi ahaan aan isleeyahay baan rabaa inaan ka iraahdo Soomaaliyay waxaa maxay ay aad u dhaliishaan dadka wadanka dib ugu soo laabta especially dadka qurbo joogta ah markay idin yimaadaan oo wadanka idinku yimaadaan iyagoo barnaamijyo iyo ra'yi maxay ay kiina ka duwan wata ay idin yimaadaan but waxaad sameysaan inaad attacktaan inta badan attack fara badan baad ku sameysaan oo marmarsiyo ah especially haddii ay dumar yihiin attack fara badan baa lagu sameeyaa taasoo keenaysa in gabdhaha qurbo joogta ah aad niyadda ka dishaan oysa wadankoodii hooyo hami u yeelanin sababtoo ah gabadhii timaadaba oo fikir keentaba qaarna aad dishaan qaarna aad ma aragtay daba taagan tihiin oo hadaladooda aad sarrifaysaan noociyo maalinba nooc waasaanay waa gaalay u shaqaysaayay kan weeye bababa Soomaaliyay gorma horumaraysaan gorma ilbaxaysaan gorma ayaa la idin sheegi karaa adduunka halka uu marayo ay su'aasha calaam su'aalka ani maanta ii taagan because wiil hadduu yimaado wadanku kusoo laabto uu fikir keeno okay waa soo dhawaynaysaan waxaa leedahaa wiil baa yimid barnaamij buu keen qorshuu keeni arrin buu la yimid ha lagu taageero waa okay gabar baa imaanaysa oo wadankii isleh bal dhalinyaradii iyo dadkii maxay ahayd bulshada cusbeed wax u sheeg waa dilaysaan dilka hadday ka fakatana waa caayaysaan imsaad disheen imsa gabdhooda wadanka ku disheen oo barnaamijyo iyo wax idiin waday baad naftoodii dhaafiseen hal iyo laba ma ahan hadda maanta waxay taagan tahay gabadhii maxay ahayd oo la yiraahdo Fatiya Obsiye gabadha la yiraahdo bad aad u daba dhigteen beryahan waa gaalooy gaalay faafinaysaane meesha ku gaaloobaysa midinkaa joogay aniga calaamad su'aalka ii taagan meesha ay ku gaalowday midinkaa joogteen idinka goob joog ka ahaydeen iyadoo qaawan iyadoo saan ah iyadoo kadhiish ah war Soomaaliyay dadka idin imaanaya oo barnaamijyada idin wada oo mashruucyada idin wada oo raba bulshada inay wax u qabtaan ataaga ku haysaan ka daaya dadkii hore u joogay cid haysataa ma jirto qof walba wixii ra'yigiisa ah ha lagu ixtiraamo qof walba wixii uu wado oo wadankaas dadkaas Soomaaliyeed masaakiinta uu u qaban karo ha lagu ixtiraamo ma ahane cayda iyo aflagaadada walaalayaal iska daaya wadanka niyadda ha ka dilina gabdhaha qurbaha idinkaga imaanaya oo faa'iidada idin wada oo mashruucida idin wada oo gabdhaha masaakiinta danyarta raba inay wax baraan inaad ka hor istaagtaan oo wadooyin ka xirtaan ha ka shaqeeynin Soomaaliyeed ani waa iga talo ra'yi ahaantayda hadda waxaad keenteen wadanka iskuul waxaa jiro dadka lagu gaalaynayo yaa arkay ma aragteen dadka ma saarteen kuteen waa laga fiican yahay iskuulkan hadda Hargeysa la leeyahay maxay ahayd gabadhii oo ma aragtay magaceedu muxuu ahaa Joy Isa gabadha Nigerianka ah ee agaasimaha ka ahayd waxaad tirahdeen diin gaalaa wax lagu barayaa soo cadeyseen ku aragteen ma kula tahay iskuul diin lagu baraya inaad ka aamus leedeen Soomaaliyay dadka maxay diin islaameed lagu faafinayo hore ka soo xir leedeen waxa cadeyna ma haysaan wax la hubo ma haysaan waxa haysaan kaliya nacayb gabdha nacayb kaliya ka batay nacaybka gabdhaha u qabtaan ba maalinta ka dambaysa isu soo taraya gabdhuhu waa gabdhihiini gabdhuhu idinkay wax idin soo barteen gabdhuhu hadday rabaan inay bulshadooda wax u faa'iideeyaan ha ka hor istaaginina anuu intaasaan kulley shakhsi ahaan fikirkayga waa intaas aniga gabdhaha wax bartay oo wadankooda u soo laabtay ha ugu gambanina diinta qof aad ka xigtaan ma jirto waa wada loo wada sameeyaa
diinta adiga hada haysto anigu waa haysta iyada waa haystaa ha isaga dhigina difaac diineed ha gelina waxaa dadka ku dhimiseen oo maxay ahayd oo lidinkaga taag la-yahay diinaad ku gambanaysaan maxaa diinta ugu gambanaysaan diinta qofaa ka xigtaan ma jirto qof walba waa muslim adigu muslimaata iyadu waa muslim isagu waa muslim kan maxay ahayd saxiijinaya oo maaragtay leh anaa saana iyo diintu saan ma qabta iyo diinta waa loo wada siman yahay dadku waa wada muslim qof ka xigaa ma jiro ilaahay baa la wada aaminsan yahay okay iska daay diintaan ku gambanaysaan waa naga badbadiseen qof walba oo maaragtay wax wada oo barnaamij wada oo wadankii hami iyo wadanimayad ay soo qaado midaad ka takhalustaan midaad maaragtay caysaan midaad tirahdaan gaalbu wadaa ana ma garanayo meesha ku socotaan soomaaliyey meesha ku socotaan meel aan garanayo ma aha wadanka waxaa loo qabto dadka wax soo barta ha yimaadaan gabadhaas Fadxiya Cabsiye ah anigu kulley wax qalada hadda samaysay kulley fikir ahaan uma jeedo laakiin idinku waxbaad maaragtay aad kala bedelayseen kulley qof ahaan anigu wax ma arko gabdhaha dumarka ay u doodaysaa ka xuntihiin dumarka weliga inaad halkaas madaxa kaga taagnaataan arabtaan dumarka aad halkaas madaxa kaga taagantihiin ka dega intaas aanu kula idin leeyahay Soomaaliyeed wiilkan la xiray oo Cabdimaalik la leeyahay asagana arrintiisa haddii aan wax yar ka iraahdo kuma faraxsani waa wiil Soomaaliyeed waa aaba Soomaaliyeed ma mudna in la xiro balse asaga iyo dawladda uu ku xiran yahay u taala arrintaas mid aniga qusaysa ma aha laakiin ma ku faraxsani marnaba waa ka soo horjeedaa wiil dhalinyaro oo aaba ah oo samafala ah in la xiro raali kama ihi marnaba taasaan ka leeyahay Cabdimaalik Muuse Coldoon waan ka xumahay xarigiisa kuma faraxsani balse haddana inaad dad ataagtaan sababta xariga wiilkaas inaad dad u taagtaan ayadan raali kama ahi labaduba waa ii siman yihiin waa dad Soomaaliyeed waa dad maxay ahayd oo aan muslim ah waa ummad aanu isku isirnahay marka walaalayaalow xumaanta faraha badan iska daaya qof muslina ood leedihiin waa gaalna iska daaya waa ku dambaabaysaan wiilkaas waxaa ilaahay ka rajaynayaa in uu xorriyadiisa helo sida ugu dhaqsaha badan leh baan ilaahay ka rajaynaya asagana uu familkiisa iyo reerkiisa iyo ummaddii uu hormuudka u ahaa ilaahay u soo celiyo baan ilaahay ka baryayaa idinkuna u soo duceeya asaga intaasaan ka leeyahay Cabdimaalik marka iska dhaafa iska qabsiga iyo iskuul baa gaal lagu faafinayaa iyo imise ummad oo Soomaali ah oo wax soo bartay baa isleh wadankaayo ku laabo oo wax u qabo hadday taasoo kale arkaan yaa imaanaya qof imaanaya ma lahan qof walba wuu cabsanaya wuu baqaya arag hebel wax lagu sameeyey arag hebel waa la dilay hebeladii kale waa daba taagan yahay marka Soomaaliyey iska daaya mowqif xumada iyo isku dhegdhega iyo ismagaciisiyeynta ad maalin kasta is eedaynaysaan qofkaan waa gaal iyo qofkaana diin gaaluu wadaa iyo way soo badatay iska daaya waxaas qof walba hami buu leeyahay wadankiisa inuu wuxuu u soo bartay iyo wuxuu awoodi karo inuu wadankiisa kula laabto jecel yahay laakiin wadankii markii lagu laabto haddii la isku dhegdhegaayo qof walba meeshuu joogo iska fadhiisanaya because wuxuu is leeyahay hebel wax ku dhacay ma aragtay adna yay kugu dhicin marka walaalayaalow barnaamijkayga maanta wuxuu u badan yahay waano iska daaya foolxumada iska daaya tafraaruqan iyo waxaan aan dhammaanayn iska daaya gabadhaas maxay ahayd Soomaaliyeed ood ma aragta ku dhegantihiin ayadana ka dega waa gabar soo baratay waa gabar rabtay inay dadkeeda wax u faa'iideyso especially gabdhaha yarta inay wax u faa'iideyso gabdhaha xuquuqdooda yaan laga hadlin maa leedihiin waa laga hadlaaya xaqaa loo leeyahay in laga hadlo because wax badan baan ognaa waad idinku ogeyn waa sheegaynaa marka ma lisa taagaya haddii wax la sheego haddii gabadhu wax iftiimiso oo tiraahdo gabdhaha intaas baa maxay lagu hayaa laga daayo ma weeraa lagu soo qaadaya maxaa u tilmaan leeyahay bal aniga hay soo weerarina Soomaaliyeed waa dhibaato haddii aan wax la sheegi karine bal dib u sug noqdo oo iska dhaafa waxaan aan wadaan barnaamijkayga maanta oo kale fikirkayga aan uga hadlaayay aan ku cabiraayay wixii aan ka qaba arrintaas ayada halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asxaabey hal codsi baan wataa inta aanan ka bixin hadalka
channelka haddaa ku cusub tahay subscribe like share waa xagaaga anigana wixii ra'yi ah oo no aragtay is iraahdo waxaan saan u yihiin inaan idin soo jeediyo baan aniguna ka shaqaynayaa bal idinkuna igala shaqeeyo oo dhiirageliya liketa iyo shareta iyo subscribe-ka igu dhiirageliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiin macnaada waqtigu